ma jirin runtii maalin horta iyagana xalinta badnayd way soo martaa markaas haddana weli uma sheegin laakiin waxaan ku iri antay waa maalintii iigu kaa dambeysay haddii ay waxay gaaraan ama aan dhinto waxaad igu xasuusin doontaa waa calanka Soomaaliya meesha ku dhaji markaan soo tagay agaasimo idaacada nooyay wuxuu igu yiri xuriica waa daahday man ku qaado waa soo tagay agaasimo baa soo qaaday meel dhexe oo laamiga ah markaan marayo ayaa waxaan ku iri agaasimo idhig halkaan inta waan lugeynaya way magaalada dagaal baa ka dhacay way yara xirxirnayd amaanku magaalada marka loo fiiriyo wad meeshan anigu marayay iyo isaga uma habooneen inuu meesha isii dhaafiyo habeen iyadoo shaqada idaacada ka baxday ayaa laba dhalinyaro ah oo de kuwan la khalday ah ee laga faa'iideystay oo aan laftigooda haddii hadda la wareysto haddii caawa inta la weydiin lahaa maxaad ku disheen aan garanayn ay shan xabo ku dhufteen qofkii kale hore ii soo dhaafayna masaajidka dadka taagnaa wax dad ku fura si dadku kala cararaan qofka markuu waan kala wareegay telefoon lulku ku dhacay gacanta way jabtay markaan sidii wadaxan isla deeb meel kaaga dhow ma jirto inaad ku noqoto laamigii aka timid laamiga ku yara noqo waan soo yara noqday labadii qofba xabadii way ku soo fureen xabad kasta ay jirkayga ku dhacdo horteeda bay ku dhacaysay waan arkay ma jirto cid kuma cinbidaysa ee ah inaad samaysid wadanku ma lahan meel laama amaan ee ku dhow degdeg kaga jawaabi kara waxa dhacaya waxyaabaha kale naxdinta leh waxa weeye gabar yara ayaa laba nin xabad ku dhufteen markay caradhay meel ciyaar lagu daawanayo ahayd meherad ahayd ayay damcad inay gasho kaga baxsato albaabka laga soo xigtay xabadina ku socotaa nimanku waxaysanayaan ka bacdi waan soo baxay xabad ayaa waxa iiga dhacday wadnaha korkiisa gacantu way jaban tahay waxaan isiri caloosha ku soo dhacaysa hada uradid because waan orday aad baan orday shanta xabad labada nin way ciirsanayeen waxaan isiri marka inta caloosha hadaad uradid ay caloosha dhacdo caloosha ma ordi kartid sida naftu ku sheegayso ayaan gacantigan qaatay oo caloosha sida ugu qabtay gacanta way jaban tahay tii kale iyo caloosha sida ugu qabtay hooyaday mar walba iyadu waa uu ku taagnaa walwalku ah xuriya ama wax soo gaara ودريبي كرسا قف واردة اللي يري عنقاق والد لي هادنا نبكى هوري حنون كده ودريمي إن اللي يري هدو حبا هو إذا يمروا الباقي ده يسوي حويان dadku xuriya markuu dhibka gaaro weyn laakiin uu himbagay waayo mar walba ayaa iyadoo la raadinayo guriga la igu imaanay leeyahay xuriya goorbe imaanaysa guriga magaalada waxa ka jira amaan dari aad u baahsan ee dilalka in la istilo ma kama jirin waxa aysan awoodi kareynin xataa dhalinyaradu wali marka qof la dilo inaad toos u tiraado qof hebel baa la dilo waayo waxa ugu badan laga baqanayo waxay ahayd qofka kula fadhiya miyaa la idin soo diray xataa idinka biibatada idin fadhiya قال كعيو وقت قداوي عجاري إلا أبتنا وساعدنا وأن فيلا جوجو وحن نرشة إذا وجبنا كور قبائل حال كيجا كور قبائل وقبيل معه قال كعيو لما دجال بحد وجودن بيه أو لما دسنا وجودن بس كداعي دجال هذا كم يدوح قبل وضي أو لو جود دجال لماي وضو إلا 5 كيلومتر لأن لا يحل سارة إيه يلا سارين ما هو يلا سارة يا ما سارة كنت ويل باكل بعدين wadada in lama saarin wali waxa ku go'an ciidii la dhigay maalinka dagaal lamana dhisin wadadii konton wiil waa dhimatay hawshana waxa la yiri bis halka la kala joogo
gaalkacyo oo wiilka degani garsoor iyo wiilka degani maxaa la yiraahdaayay israac ay ku hoydaan xaafadda magaalada ugu dambaysa koonfurta gaalkacyo ay jiiftaan guri ka ijaartaan ka shaqaysan karayaan wax ku baran karayaan waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iidaysto 5 sano ka hor dib ay gaaray hay'adda dad Soomaaliyeed anoo dalkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed u shaqaynaya hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay hortiis cafis bay iga yihiin maanta waxaan ku qiirooday marka barnaamijka ka dootay tirwaan caafimaadka ninka intuu qabtay damcay inuu madaxa kaga dhufto xabad wuxuu ku dilinay aysan jirin oo 5 xabba ku dhuftay iyadoo gabar yar ah oo anigiga ay jidid baa qaaday markii si u yareed anaha markii dhaawac ahayd oo ilmo yar qof yar bay ahayd ayaa iyadoo haddana wali yar oo gabar yar ah waxay garatay inay tahay waan cafiyay dadka dhibka ay gaarsiiyay sababtan u cafiyay marka waxa weeyaan qof walba wuxuu isweydiinayaa xorriyo maxay u cafis anigu ma garanayo caawa meel ku noolyihiin inay dhinteen inay noolyihiin walina intay hor yimaadeen igama dalban cafis sababtan u cafiyay waxa weeyaan ana u arkay inaan caafimaad tahay inaan ku caafimaad inaan cafiyo cid dambiga gashay waayo inaan caloosha ugu hayo ee iraahdo way idileen aanan garanaynin aanan maxaa la yiraahdaa maxkamadda soo istaagi karaynin iyaga i hor imaanin waxay fududeynaysaa aan qalbigayga nadiifiyo qalbigayga ka saaro ee aan dhaho cafi baa iga tihiin